السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وريدا وائد سلامي ومد الصومالية ملك السادونة الدافية كي جوكتان وأنك عبد خالق لو حيرا أها مقالة بروكس بأنك سو السلام يا كندا رمضان كريم بالرمضان وخير بدن باينو بالعواتي نوحن روا إن شاء الله بالمكريم إن شاء الله بالمكريم وحن بشهر رمضان إنا وحيالا خير يهالك نكسودرو هدي الله إدمو idinkana inta daawanaysa ina khayrka ka faa'iideysataan oo dhageysataan waan jecelahay insha Allah bil kareem siina share garaysaan oo walaalihiina muslimiinta oo Soomaaliyeed iyo wixii muslim oo luqadda Soomaaliga fahmaaya hadda Soomaaliga dad badan baa ku hadlay gaarsiisaan bisha Ramadaan waa bilaabatay waxyaalaha amalada wanaagsan oo bisha Ramadaan dadku qabtaan waxa ugu fiican Quraan akhriska iyo sadaqada ana labadii nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku dadaali jiray marka bisha Ramadaan haduu ilaahay idmo waxaan rabnaa qof walba inuu intuu wuxuu ahsan iyo khayr geysan karo uu ka faa'iideysto oo bisha Ramadaan uu ka faa'iideysto bisha Ramadaan waa ogtiin habeen khayr badan baa ku jira oo Laylatul Qadr la yiraahdo oo 83 sano iyo wama saada iyo wixii ka badan u sidhigma in dadku ka faa'iideystaan in ilaahay la isxasuusiyana waa wax wanaagsan qofka bini aadamkaana waxa la rabaa inay u kordhaan garaad iyo aqli u kordho waa la rabaa waxa la rabaa wixii ku dhacaya oo ku dhacay inuu wax ka barto waa la rabaa abti video artana ku soo dhex muuqato ma garat waa wiilal Soomaaliyeed oo iska ciyaaraya ciyaar kubad iyo iska ciyaaraya gadaasheeda ku ciyaaraya hase ahaatee niman yahow iyo gabdho yahow waxa la rabaa inaad ka faa'iideysataan bisha Ramadaan baan insha Allah makarim isku boorinayna waxyaalaha aan rabo inaan ka hadlo wax kamid ah maanta ugu horeysa sadaqada mar kale baan ka hadalnay horta maalin walba haduu ilaahay idmo hadii aan ka gaaro video waan soo gelinayaa haduu ilaahay idmo waa meesha bartayda Facebook waa YouTube-ki waa TikTok-ki kulli waa soo saddexda waa soo gelinayaa haduu ilaahay idmo Instagram baa jira iyo Snapchat iyo hadda ma isticmaalo waxaan u maleynayaa Snapchat-ka ma walahanba meel fiidiyoyo la soo geliyo TikTok-na waa iyaga balaariyo 10 daqiiqo ka dhigay waagi hore 3 daqiiqo ahaan jiray kadib 5 daqiiqo laga dhigay hadda waa 10 daqiiqo fiidiyo ma sha Allah niman yahow Quraanka waa in la akhristo waa wax fiican bisha Ramadaan anuu inta muddo ah hadda dhowrkii sano u dambeeyay bisha Quraanka waa khatimaayay sanad baa jira aan Quraanka khatimin laakiin meel fiican soo gaarsiiyay ma xasuusto sanad hore waa laakiin wixii sanadadii dambe dhan Quraanka waa iska khatimaayay inta badan mar baan khatimaayay oo soomanahay been ma sheegi karo laakiin mar aan laba iyo bar iyo aan khatimay saddex iyo waa jirta insha Allah bil kareem imaam Shaafici oo aad madhabkiisa haysataan يعني ختمات عربية يعني قرآن كنا تكسب بالعوض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فاتعادة أتكسب بالعوض يا البقرة يا دنك قرأ وقل عد برب الناس كنت ختمات اللي يراه هذا وقرآن ختمه قفكو ضميه بالي يراه هذا إمام الشافعي أو إنه مذهب كيسا هيسنه وطمعنا مذهب كيسا هيسته إمام الشافعي هبين كنا مربو ختم جري رمضان ما أنت مربو ختم جري وما ساد ولو يحبك الدري جري بشي لحدنية ديرات تير بقرآن كختم جري هذا بشي وصدم بري هذا معناتي صدق ختمه صدق كمعلومات بقى وختمه معلومة القرآن كضمينا أيوه كور أنتو كسر بلعب هوس كوجين أيوه ضمينا أيوه هبين كانوا كور كسر بلعب ضمينا أيوه بشي صدق مربو معناتي صدق هبين كيا لحدن جرب القرآن كضمينا يعني وما ساد يوعي كسيادة وليه جصص أيوه بقى ودار مركا يعني وعدد إلهي وقت جودي بركية ما قرأتي ودد هدف لها يهاين سي انت لم تكايد السلف كايد الصحابه التابعين تيدك وناكسنا انه دلالكودي ما غاري كرنو انغا maanta ka opportunity fiican qofka Soomaaliga maanta daawanaya baa wuxuu ka opportunity fiican yahay Imaam Shaafici ka opportunity fiican waxyaalo badan markii la fiiriyo adduunku maanta waa iska adduun fitna ah adduun xumaada weeye qofka maanta iimaan iyo salaad la yimaada xilliga Imaam Shaafici wuxuu noolaa xilli dadkooda muslimiin xilli la isdhageysanayo ما قرأت ما أنت وح حكمة شيء قاينة أركميسد هذه حكمة لا شيء أنا وح قاعدنا على أركميسد لكن إمام الشافعي إحنا على حل الدتك إنه ليهم بنولا حل الجهاد جربوا بنولا هذا أرن كلام ويجي يا أدي
jihaad aad geshid buu noolaa laakiin maanta waqtigan lagu jiro waa waqti adag baa lagu jiraa oo fitna ah ma garatay marka almuhim waxa imaam shaafici maanta ugu opportunity fiicantii waqtigan fitnada qofkii xisanaad caafimaad la yimaada uu ka fiican yani uu ka opportunity fiican yahay ilaahina uu ka abaal marnayo maxaa soo haray waxa soo haray hadii ilaahay ku idmaaye wax baarista xilliga imaam shaafici da waxba maxaa la baaraa kitaab ba masar u doonanaysa hadaa doontid jidkaaba bahal kugu cunaaya haduu doono waa kaa qoyaaya ma garat laakiin khadka maanta ka raadinaysa taleefanka hadda wax iskaga duubay S23 Samsung way 128 GB way intee buu qaadi karaa quraanka dhan buu qaadi karaa qiraa'ooyinka la akhriyo dhan buu qaadi karaa wuxuu qaadi karaa hadii ilaahay ku idmaayo saxiixul bukhariga intaas 128 GB waa capacity weyn intaas oo wax bay ii qaadi kartaa oo ku daawan karaa saasa marka ugu opportunity fiican yahay qofka maanta nool qofkii computer haysto hal terabyte iyo u yihiin kaba sii wanaagsan shaashadiina ay u sii weyn tahay warmayno xisan ahsaanka isku waafajino isku wanaajino anu waxaan ku dadaalay sanadkeena 4 jeer khatimo hadii ilaahay idmo 2 jiso habeenkii 2 jiso maalinkii marka waa sidaas fiidiyoga maanta intaasan ku soo koobaya insha Allah bil makrim kulan dambe xiiso leh khayr baan idin rajaynaya Ramadaan kariim